naafo waxaa horta qofka qalbiga la dareenka oo geliya marka aan dalkayga iyo deegaankayga aan wax u qabanayna ma la soo koobi karo deegaankeena waa nolosheena deegaankeena nadiifso oo ku naso dadka baahiyaha gaarka qaba kaalin weyn ayay ku leeyihiin ololaha nadiifinta xeebta Lido ee Muqdisho subax walba ayay halkan u soo dheelmadaan iyadoo ay si jirin ciisi gaar ah wax ugu siisa qorshahooduna waa in ay ka qayb qaataan ololaha nadiifinta xeebta Lido ee Muqdisho Jeelani Ali Xasan waa mid ka mid ah dadka baahiyaha gaarka qaba balse kaalin weyn ka jira barnaamijka nadiifinta ah Jeelani waxa uu sheegay dadka baahiyaha gaarka qaba ay kaalin weyn ka qaataan ololaha nadiifinta ay maalin walba oo jimcaha ka socda xeebta Lido ee Muqdisho waa sanad guuri ayuu goostay maanta oo jimca ah 52 sitimaan ayaan maraynaa ilaa maalintaas ilaa maanta bulshada in badan wax badan baa kala kulnaa ha ahaato hadal xumeyn ha ahaato dhaqaalad ku qaatan ha ahaato NGO awaatiin hase yeeshee dhalinta halkan ka shaqeysa jimca walba waa dhalin isoo xilqaantay tasiilaadka ay isticmaalaan 99% jeebkeena ka isticmaalnaa naafo waxaa horta qofka qalbiga la dareenka oo geliya marka aan dalkayga iyo deegaankayga aan wax u qabanayna ma la soo koobi karo dadkuna markay yiraahdeen naafo waa ku qoslaabaano sababtoo nin asiga tiisi lumsan tahay ayaa adiga ku dhahay naafa tahay kaasoo kale era adigaaba naafa Maxamed Barwani oo kamid ah dadka hormuudka ah barnaamijkan ayaa waxa uu sheegay wax ka badan 52 usbuuc ay soo wadeen barnaamijkan isla markaana maanta muddo sanad ay u buuxsatay isaga oo sheegay in dhawaan ay qorsheynayaan in xeebta Lido meel ka baxsan ay tagaan barnaamijka nadiifinta ay ka bilaabaan sida uu sheegay way adag tahay hawl qofka uusan wax nacfi ah ka helaynin in 52 usbuuc la joogtay runtii waxaan isleeyahay waa achievement weyn waa guul weyn oo dhammaanteen aan wada gaarnay qof koox dadkii nagala qayb galayay kuwii nacaawinayna sabadgarinay intaba intaan magaca ay ku walaaloobeen ugu weyn waxa waaye in ololaha nadaafadda oo dadka dhan ay wada aaminsan yihiin inay tahay dalka oo dhan iftiinkiisii meeshii laga arkay inaan ku wada midowno runtii dhalinyarada Soomaaliyeed ee rag iyo dumarka isugu jira isla markaana is xilqaamay subax walbana halka u yimaadaan nadiifinta xeebta Lido ma jirto cid gaar ah oo ka taageerta barnaamijkan sida iyagu ay noo sheegeen Maxamed Axmed Soomane Risala TV Muqdisho